bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiin badda wadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii dhabka hadal oo aynu qodobkan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyey ee xiisada ka taagan maanta Somaliland iyo dibadbaxyo halkaasi ka dhacay waxaynu eegi doonaa bal xogihii ugu dambeeyey waxaa jira xildhibaano dhaawacmay waxaa hadlay xisbiyada mucaaradka hogaankooda qaar ka mida iyo siyaasiyiin saameyn leh bal waxaynu eegi doonaa marka si guud xogihii ugu dambeeyey ee maanta dibadbaxyadaasi ka dhacay magaalada Hargeysa waxaa dhinaca iga fadhiya wariye Nuur oo arrimahan soo indheeyay su'aalana aan ka weydiin doono Nuur soo dhow mandhow saaxiibada mahadsan aad baad adigana u mahadsan tahay bal haddii aad nooga waranto xaaladda guud ee maanta magaalada Hargeysa ay ku sugan tahay waataynu ogeyn oo barqankii ama gelinkii hore ee maanta dibadbaxyo ayaa ka dhacay shaqooyinna waa laga soo sheegayay bal si guud haddaynu daawadayaasha ugu dulmarno xaaladihii ugu dambeeyay aad baa mahadsan tahay mar kale dadka Soomaalida waa salaamaya ee inagu xiran waan ugu mahadcelinayaa sida inagu xiran yihiin wararka aan halkan uga baahino inta kadib guuladow Somaliland maanta qalalaas ka dhacay siyaasadeed xisbiyada mucaaradku intii muddahayd waxay ku baaqayeen inay markaasi banaanbax ay qaban doonaan kaasi oo ay kaga soo horjeedaan xisbiyada ama asxaabta siyaasadeed ee uu madaxweynaha Somaliland isagoo hore u dhawaaqay in la furayo taas oo markaasi ismarin waa xoogani uu ka taagan yahay waxa ugu weyn ee la isku hayana waxa weeye labada doorasho mid ka horeynaya oo doorashada asxaabta mucaaradka sida aad la socotaba ama aan wada ognahayba Somaliland 10 sanaba mar ayaa asxaabta mucaaradka iyo asxaabta dhan markaasi isbedel lagu sameeyaa ama markaasi tartan siyaasadeed oo dhinaca xisbiyada la galaa xisbigu marka uu soo baxo saddex xisbi baa sharci ka noqonaya oo markaas saddex xisbi ugu codbata doorashada shacabku ay codeeyaan saddex xisbi ugu codbata ayaa waxa ay noqonayaan saddex xisbi qaran oo markaas midna uu xisbi xaakim noqonayo xisbiga talada ku guuleysto uu noqonaya doorashada la galo labana waxay noqonayaan laba xisbi oo markaas mucaarada saddexdan xisbi marka sidaas hadda ku jireen kulmiye iyo wadani iyo ucid 10 sano ugu dambeeyay bisha November ayay markaasi 22keeda ayay ku aadan tahay xilliga markaasi sidaan jeclahay la furi lahaa asxaabtaasi doorashada ay gali lahaayeen marka xilliga asxaabta la furayo waa in xisbiye kale fara badan nin walba xisbi uu furanaya 100 xisbi haday gaaraan waa loo kala codeynaya saddex xisbi ugu cod badan ayaan saddex xisbi qaran markaasi noqonaya asxaabta kalena ee markaasi sida musharaxiinta Soomaaliya tartanka ay ugu kala hareen ayay tartanka ugu kala harayaan intaasi waa taas marka arrinta siyaasadeed la isku hayo waxa weeye doorashadii madaxtooyada ama doorashadii madaxweynaha ayaa waxay ku aadan tahay 13 bisha November marka sida daraadeed sida dastuurka Somaliland ama xeerasha Somaliland qayb kamid ay qabaan labada doorasho waxa horeynaya midda maaragtay midda madaxtooyada ayaa horeynaysa asxaabta mucaaradkuna sidaas ayay rabaan si markaasi doorasho furan loo galo kadibna hadii madaxweyne Muuse uu markale guuleystana uu isagu u qabto markaa dambe doorashada xisbiyada hadii laga guuleystana markaasi raggan hadda jooga ee labada xisbi ee ucid iyo wadani kala xukuma ay tartan mar kale ay Muuse ula galaan waxa ay ka cararayaan hadii asxaabtii intii lagu furo iyadoon doorashadii madaxweynaha la qabanin oo Muuse dib loogu dhigay waqtigii doorashadii xisbiyada la qabto waxa dhici karta labadan xisbiba inay daaqada ka baxaan waa wax suuragal ah oo xisbiye kale oo ka shacbiyad badani ay markaasi ay aqlabiyada ay markaasi noqdaan oo labadan musharaxba marka hankoodii sidaas ayuu halkaas u maragtay ku baabaaya hadii marka xisbiye kale ayna ku beerin oo wadani iyo u cidinta ka tanaasulaan ayna asxaab kala samaystay aysan dib ugu beerin iyaga labadooda xisbi waxa laga yaabaa waa sida ay ka baqdinto ama maaragtay ay ku doodayaan marka waxyaabaha muranka dhaliyay bay kamid tahay dadka qaar marka ay soo ururiyaan waxa la leeyahay madaxweyne Muuse oo muddo kordhin raba si uu doorashada xisbiyada u qabto iyo mucaaradka oo diidan oo leh doorashadii qabo kadibna doorashada xisbiyada cidii guuleysatay madaxweyne noqotay ha qabato waxa la isku hayo horta waa intaas ee ugu weyn arintaas aanad moodaa in ismari waa xoogani uu ka taagan yahay marka asxaabta mucaaradku waxay ku baaqeen mudaharaad silmiya oo markaasi ay arinta kaga soo horjeedaan isla markaasina madaxweynaha ugu baaqayaan in doorashadii madaxweynaha uu qabto ama doorashadii madaxtooyada uu qabto iyadoo taas marka la isku hayo halka hawshu ay marayso ayaa haddana waxa maaragtay ku xigtay in ciidamada boolisku
amar lagu siiyey ama awaamir lagu siiyey in wax banaanbax la yidhaahday uusan jiri karin isla markaasina aan loo baahnayn qalalaaso siyaasadeed oo ka dhaca gudaha Somaliland way dibadbaxyadaas ka dhacay iyo xaaladdu sida ahayd qodobkii kan ka horeeyay baynu ku faahfaahinay bal waxaan rabaa wixii ka dambeeyay xilligii dibadbaxi waa la kala caydiyay waxaa hadlay mas'uuliyiin saameyn laba hadlay gudoomiye Ciro musharax madaxweyne oo xisbiga wadani ah uu hadlay Ciro muxuu sheegay banaanbax horta markuu dhacay waxaa ka xunnahay rag baa dhaawacmay dhowr qof bal qaybta dhammaan kaga hadli doona laakiin banaanbaxa waa saad horeyba barnaamijka hore aad ugu sheegteen waa la kala cayriyey musharax Ciro oo banaanbaxa hogaaminayna waxaa la arkayay isagoo maaragtay markaasi sunta dadka ilmaha ka ilmaysiisa inta lagu tuuray odaygii waxba arki waayay oo markaa biyo lagu hafinayo waa la arkayay dad badan oo maaragtay aad u badan baa la xirxiray kiliba la soo duubay ciidamada booliska oo dumar Soomaaliyeed oo Somaliland u dhashay oo banaanbaxa qayb ka ah haraatinaya waa la arkayay marka adigu xogaa shaqaaqa ayaa halkaas ka dhacday musharax Ciro oo markaas meel fagaara ka hadlayna waxa uu sheegay in banaanbaxa ugu weyn rasmigii uu dhici doono maalinta Sabtida ee inagu soo aaday sida la socoto berri waa maalin Jumcada waxa ku xigana waa Sabtida marka Sabtida berri mooyeen bari damba oo 11 bisha noqonaya ayuu musharax Ciro sheegay in banaanbixii la isugu imanayo waxa uu ku baaqay in magaalo kasta gobol kasta degmo kasta iyo tuulo kasta iyo waliba guri kasta in banaanbaxaasi uu maalinta Sabtida ee soo socota inuu banaanbaxaasi ka dhaco sidaas uu maaragtay musharax Ciro ku baaqay waxaana la rajeynayaa kulliba taageerayaashiisu ama taageerayaasha mucaaradku inay banaanbaxaasi maalinta Sabtida ay ka qayb qaadan doonaan wax dawladdu warama ka soo saartay markaa shayada musharax Ciro markuu hadlay waxa ka daba hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo markaas isagu sheegay wax banaanbaxa oo 11 bisha ama maalinta Sabtida jiri karay inuusan jirin ciidamada booliska iyo ciidamada amaankana waxa uu ku amray inay shaqadooda qabsadaan marka waxay u egtahay hadii aan la kala roonaanin oo ama qoladan mucaaradku ayna tanaasulin ama kuwan kale ayna tanaasulin in uu hadana mar kale ay ka dhacayso sidii xamarba hore ka dhacday ma yuhuud baa albaabka naga furaday maaragtay maalintii Xasan Khayri iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay maaragtay dhaxordayeen dadka xabada lagala daalay in sidii si u eegooni ay dhici karto waa wax iska macquula marka labada dhinac sidaas ay uga hadleen qolada mucaaradku waxay dhaheen waa inoo Sabtida qolada dawladuna waxay dhaheen ciidamada ammaanka shaqadooda ha qabsadaan way bal markay dhacdada ka nimaadno shaqaqadii maanta dhacday waxa ka dhashay dhaawacyo xildhibaano uu ka mid yahay Barkhad Baatuun oo aynu warkeennii hore isagana ku tabinay xaaladii isaga u dambeeyay ka soo kordhay iyo cid wehelisay hadii ay cid ku soo kordhay magaciisa la yiraahdo Barkhad waxa muhiimadu waxa weeye in uu Barkhad uu yahay aad ma santahay waa ka xunahay xildhibaan Barkhad Baatuun lama yiraahdo Barkhad Baatuun baa la yiraahdaa Barkhad Jaamac Baatuun iyo laba qof oo kale ayaa la sheegay inay dhaawacmeen dhaawacyadoodu inay yara sahlan yihiin ma qiyaasaya ilaa hadda dayro weyn oo markaasi in dadkaas ay garab yihiin oo la sheegaya ma jiro Barkhad oo hadlay waxa uu soo dhigay sawir markaasi jilibka meeshan anqawa korkiisa la yiraahdo ama cumacumta korkeeda surwaalka ay meel daloosho xabad inay ka gashay aad moodo ay kaga taalo qoraalka markaasi uu soo qorayna qoraal kooban buu markaasi uu soo qoray oo markaasi uu kaga hadlayo xaaladaas waxa uu yiri xabada lugta la igala beegsaday waxaan u fahmay in la rabay inaan naafan noqdo oo lugaha aan xaq iyo xuquuqda muwaadiniinta ku baadi goobayo la iga curyaamiyo balse may dhicin oo Allah ayaa i badbaadshay alxamdulillah buu yiri xarig iyo xabad iga joojin mayso in aan xaq sheego cid wal oo markaasi ka damqatay xabada la igu dhuftay waan u mahad celinayaa waan nabad qabaa hadda mahadsanidin buu dhamaantiin hadda waa nabad qaba marka Barkhad inta soo qoray waxa uu muhiimada ku sheegay waxa la arkay clip isagoo maaragtay dhutinayo oo gaari la sii gelinayo dadka qaar maaragtay waxay lahaayeen markaasi in xabad Danish ku dhacday iyo inay maaragtay mid nool ku dhacday lama kala qiyaasi karo laakiin isagu waxa uu hadda leeyahay marka la fiiriyo surwaalka uu soo sawiray sawirkiisa intaan soo saaraynaaye sida sawirka hadda ka muuqata ama laga arki karo waxa uu
yidhi maaragtay waxaa muuqata meel xabad inay ka gashay surwaalka ay u eg tahay waxa uuna isagu sheegay in xabadda lagala beegsaday lugta markaasi la rabay in lugta laga jabiyo lagana curyaamiyo lugaha oo xaqa muwaadiniinta Somaliland uu ku baadigoobayo waa sida isagu hadalka u dhigay anaga sidaan leenahay ma marka laba qof oo kalena oo laba maaragtay mas'uul oo kalena inay dhaawacmeen bay warar ku sheegayaan oo midna xisbiga u cid uu ka tirsan yahay mid kalena xisbigan wadani uu ka tirsan yahay marka xarigu isagu tiro male sida la sheegayo anaga laakiin indhaha iyaga waxaan ku arkaynaa dad la xirxirayo oo markaas uu ka mid yahay gudoomiyihii hore ee garabka dhalinyarada xisbiga wadani dhamme ninka lagu magacaabo oo markaas waliba nin dharcad oo markaas macawus iyo shaati caadi xirani anaga ma garan karno taytalkiisa dawladnimo waxa uu ahaa laakiin waxaan arkaynay sida muuqaalkan ka dhaxaragnay inuu ahaa nin dhar shacab qaba oo dharbaaxa kaga dhufanayo uu dhabanka kaga dhufanayo kadibna askarta uu ku amrayo inay xabsiga ay dhigaan askartuna markaas ay sii qaadayaan marka dad badan baa la xirxiray sida wararku sheegayaan way aad baa mahadsan tahay saaxiibka Nuur Daawadayaal intaas intayna soo gabagabaynin arinta kale oo muhiimka ah iyadana in la xuso u baahan waxa weeye injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID ayaa markaas xalay ama 18 saacadood ka hor waxa uu soo qoray markaas qoraal dad badan ay nasiib darro u arkaan inuu mas'uul Soomaaliyeed inuu ka soo yeero dadka qaar laga yaabo inay ku raacsan yihiin laakiin marka la qiimeeyo hadalkaasi hadal mas'uul nin baa laga sheegay moogta hebel hadalka wasiire aadan gabiyo inuu aanu maleyn Allah u naxariistay marka hadalkan hadal wasiireysan ama hadal madaxweyne ama hadal gudoomiyeysan ma laakiin Faysal marar kala duwan baa hadal aan gudoomiyeysnayn horey looga bartay khaasatan waxa aad loo xasuustaa mar dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaar Muqdisho ka tageen qaar Hargeysa ka tageen ay ku dhinteen badaha Mediterranean-ka Masar markaas oo Faysal uu sheegay hadal dad badan ka cadeysiyay oo ahaa waan ka xumahay in dhalinyarada in aqoonyahanka Soomaaliland wax ku bartay iyo kuwii Muqdisho ka yimid inay isku meel ku dhintaan waan ka xumahay mar uu yiri iyo jirtay marka hadalkan kiib uu eegyahay Twitter ku soo qoray waxa uu yiri waa nasiib darro in maanta Muqdisho u dabaaldegaysa caleema saarka madaxweynaha la doortay Somaliland ay ka jirto qalalaasa siyaasadeed oo keeni kara dagaal sokeeye ilaahay oo badbaadi Somaliland buu inta dambe ducadu waa fiican tahay laakiin macnaha wuxuu ka xun yahay oo nasiib darro ku tilmaamay in Muqdisho caleema saar madaxweyne oo la doortay uu ka dhacayo Somaliland ay ka dhacayso qalalaasa siyaasadeed marka midaasina de waxay muujinaysaa waa hadal nacayb muujinaya oo markaas iyo kala takoor marka gudoomiyuhu intaas sheegay waxaan ku soo gabagabaynayaa xaaladda Somaliland sida ay hadda u yara eg tahay waxa weeye sidii Muqdisho ay sanooyinkii ugu dambeeyay ama bilooyinkii ugu dambeeyay ay ku jirtay ma ogtahay waxa bilooyinkii ugu dambeeyay ama sanadii ugu dambeeyay ay aad maqaynay maxamedow madaxtooyada ka soo bax maxamedow soo bax nin senator oo maaragtay la yiraaho Muuse Suudi Yaraw yaa hadalkaasi laga kood garay waxa uu yiri maxamedow soo bax maxamed ku soo bixi ma uu macnaha marka maxamedow soo bax bay dad badani ee soo qorayeen marka hadda waxaad moodaa in la leeyahay Muuse soo bax يا ماشي معارضك سوماليا قارنا معارضك حكومة دي فرماجو أي محمد وفي الله كسب علىين هذا واحد مودا إن معارضك سومالي لان لو ذا حزبها إن يجين موسى مدحتوي ذا كسب مركا واسسدي ويرى إقبال دي بتبحيث أنا ده شيء صعود ما لقى يابا أنا كسر يهود ماتين هذا واسك معقول صوبته مركا هذا الله في يلا بدأ هذا مشرع حزبي وداني مدحوينها مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed labada hadal ay ka soo yeeray marka la qiimeeyo waa labadii hadal ee horay uga soo yeeray Xasan Sheekh Maxamuud iyo markaasi dawladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaasi qolana ay lahayd wax banaan baxa oo la qaban karay ma jiro qolana ay lahayd banaan bax waa inoo taandada maxay daljirka taalada daljirka daas maalintii dambana markii la soo baxay xabada la iska waraabiyay ماشي لقى عرّي كبوين وطالع لو أركي اللي هي دمتي عبد الرحمن بقى شكرا كان يسوع عبي العموم وحنا هاي نبت جليد ونكسن ذاتك السومال لأنه وحنا جوابها dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin ugu amaanka iyo nabadgelyada badan dhinaca doorashooyinka Soomaaliland waxay tahay meesha kaliya doorasho qof iyo cod oo si xalaal iyo xor ah u dhacdo la aaminsan yahay inay ka dhacdo marka waxaanu rajaynaynaa kullayba aqliga iyo xigmadda ay inta ku soo gaadheen dadka reer Soomaaliland iyo mas'uuliyiintoodu waa leeyihiin marka inay taasi ilaashadaan
oo aysan markaasi iska lumin doonin fursadan maaragtay nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ay haystaan aysan iska lumin doonin ayaanu rajaynaynaa way aad baad mahadsan tahay saaxiibka nuur daawadayaal intaasi ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo qodobkan intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waa dhabka hadal oo idinkaga sii tagaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu